maayirka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Solteelko ayaa maanta qado hadhima sharafeed u sameeyay duuliye sare Axmed Maxamed Xasan Axmed Deere waxaana munaasabada qadada hadhima sharafeedka ah ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan xisbiyada qaranka saraakiil ciidan duuliyayaal hore iyo mudan kale waxaana ugu horeyntii munaasabadaasi hadalka iska daba qaatay mas'uuliyiin kamida xisbiyada qaranka xildhibaano iyo mudan kale oo ka soo qayb gashay munaasabada hadhima sharafeedka ah ee maayirka caasimaddu uu sameeyay duuliye Axmed Deere waxaanay halkaasi ka jeediyeen hadallo ay ku boorinayaan kuna maamuusayaan duuliye Axmed Deere waxa kale oo ay halkaasi mudantaasi uga mahad celiyeen maayirka caasimadda Hargeysa oo uu sameeyay munaasabada hadhima sharafeedkan duuliye Axmed Deere hortansan in lagu daydo Axmed waayo wuxuu noloshiisa u hibeeyay dad bini aadmi ah Axmed Dawrad buu Hargeysa ka kaxeeyay oo inuu duqeeyo diiday oo Djibouti degay waxa uu agtay inuu garoon ka kacay garoon uu degay laakiin xaalad soo way ka bedelantahay xafladii halkan igu dambeysay tantii igu xigtay bila raflad guuleed baynu soo dhaweyn oo isagoo aan diyaaradii naga badbaadinine odaygii magaalada dhismay ka ahaan jiray barasaabka tan Axmedna waxaanu leenahay hore ayaanu dhaqan u lahayn gabayada ay ku jirtay gabaxadii baan xusuustaa abaal badan abaal bara abaal buriya dheeraada yaa nimankiisa kaan ugu bedeli beerka ka ogsooni buur marka wax weeyeen aad baan kugu mahadnaqaynaa wixii abaan loo gasha runtii maanta waxa la mid tahay maalmihii halganka lagu jiray nimbo dareenkiisu wuxuu ahaabay ayay la mid tahay diyaaradda inta Hargeysa ka kacday Hargeysa rusheynaysa taariikh weyn bay lahayd hadda waxa tii ka taariikh weyn adoo maanta tii lama hadlayo waa laga soo kabtay waxa taariikh leh ninkii maalinta diiday inaan rusheyn maayo waxba diyaaraddan wada ku dhicimaysa Djibouti iska fadhiistay waxaan u mahad celinayaa maayirka hadhima sharafeedka inagu maamuusay Axmedna abaalka waxa uu hayay Soomaaliland oo dhan abaalka mid la ilaawi kara maaha insha Allah bidmillaahi kariin waan ku ducaynaynaa ilaahay waxaad jeceshahay dunyada kugu siiya aakhirana jannada insha Allah horaan u sheegay mahadnaqiisa waxaan umaleeynaa gudi karin abaalkiisa laakiin waxa cadaatay inaanu nahay dad wixii loo galo gudaha aad baad u mahadsantahay raganimada samaysay intaas waa inta xagga u jeeda maayirkii baa meesha nala fadhiya Cabdiraxmaan de xaggii guriga waa la dhameeyay arinta Axmed baan u maanayaa xaggaagii inaan wado ugu magac daro ay aniga ila tahay dhinaca kale isaguna waxa halkaasi ugu dambeyntii ka hadlay duqa caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Solteelko waxaanu halkaasi ka xusay in uu golaha deegaanka caasimadda Hargeysa uu horgeyn doono sidii ay goluhu ugu sameyn lahaayeen goob muhiim ah oo lagu xusi doono duuliye sare Axmed Deere hunaantii Axmed Deere taariikh weyn buu ku leeyahay taa mar horena waa looga sheekay imikana dib ugu celin mayno runtii aanu dadkii maalinta qaxayay baan kamid ahaa maalmaha qaxayayo halka uu ka baxay diyaaradu waxay nagu hayeen dadkii goobjooga u ahaa yaa kamid ahaa caruurtii marka la qixinayay ee laga saarayay magaalada runtii qofkii dhibaatada joogay aad buu dareemaya Axmedna abaal baan ugu haynaa inuu husheyn waayay dadkiisu ka tagay uu naftiisa biima geliyay soo jeedinta ay soo jeediyeen Cabdicasiis yana insha Allah taala golaha deegaanka oo nugeena in wada iyo xaafadba wixii lagu maamusayo lagu maamuso loogu magac daro insha Allah taala maadaama xafladii biladii qaranka ayaa uu madaxweynuhu bixiyay biladii magaalada uu badbaadiyay yaa halka ku siinayaa duuliye Axmed soo istaag dhinaca kale isaguna waxa halkaasi maayirka caasimadda Hargeysa iyo mudantii ka soo qayb gashay hadhima sharafeedda uga mahad celiyay duuliye sare Axmed Deere waxa aan aad iyo aad u mahadinayaa Allah subhanahu wa ta'ala oo nagu kulmiyay halka kan waxa kale bacdallah mahad iskale maayirka oo xafladan noo sameeyay qadada sharafta badan leh oo qiimaha badan leh oo dad isu keenta aan muddo isarag oo iskugu jira maaragtay rag mujaahidiinaha oo ragii bilaabo ahaa jihaadka iyo la dagaalankii nidaamkii faashiga ahaa Axmed Nuur Ciise telefishanka bulsho Hargeysa